Omar arrintiisi haddana meesha bay gashay hadda gorgor iyo ishi iyo iftiinka iyo nuurka iyo barnaamijka horta waa la iskala soo gudbay hadda kutubta quraanka ayay taagan tahay kutubta hadda nooca weeg kalarka horta kalar ay Soomaalidu arkeen ama horay loo arkay maaha anigu kalarka uu igu cusub yahay kutubta ayaga ana muddo ka horay ahaayeen laakiin aad looguma baraarugin oo aad looma fiirsan waayo kalarka noocaas oo kala ah ee kitaab noocaas oo kala ah dunida ma ka jiraa macnaha uu u taagan yahayna waa maxay iyada laftirkeedu waa su'aal isweydiin mudan laakiin hadda ka hore jawaab looma haynin laakiin hadda jawaabteedan ku wada kalarka binkiga marka laga hadlayo kalarka hadda marka la yiraahdo curfiga iyo caadada kalarada hadda waqtigan zamiinkan maanta aan joogno kalarka inta badan waxyaabaha haweenku ay qaataan hadda dharka ilmaha iyo kaba soo qaad wiilasha iyo gabdhaha dharkooda hadda waxa lagu kala soocaa kuwa yar yar iyo kuwa waaweynba laftirkoodu marka hadda gawaarida yar yar ilmaha ku socdaan la raba in la soo gado ka binkiga gabdhaha loo soo gadaa ka kalarka kala ana waxa loo soo gadaa wiilasha horta kalarka binkiga kalar ahaan marka la yiraahdo haweenka ayuu astaan u yahay okay horta kutubta saad aragtaba taasa kalar u ah dhanka kale marka la fiiriyo kutubta ayaga marka kalarka ayaa mariyay sababta kalarka loo mariyay maxay tahay iyada laftirkeedu jawaabteeda bal Xuseen baa inoo wada waa isla dhageysanayna muuqaalka like noo qorxo kale channel subscribe aad baa mahadsantahay seen wada ogsoonahay 10kii sano ee la soo dhaafay xaduulaan xoog leh oo markaa uu ku socday diinta islaamka waxay sameeyeen gaaladu in markaas la dhaxgala islaamka isla markaas dhaqankooda la isku dayo in la dhaxgeliyo diinta islaamka sida daraadeed ma jirto marka wax aysan isku dayeenin inay markaa ay dhaxgalaan tusaale oo kale halkan arkaysan waa masaajid marka aad fiirso dadka fadhiya waa salaad baa loo taagan yahay baa leeyahay waxa arkaysaa gabadhaanu waa islaan madax qaawan oo masaajid dhex fadhida rag bayna dhex fadhida midan kale waa islaan kaleeto waa madax qaawan tahay rag bayna dhex fadhida waa masaajid baa leeyahay marka rag iyo dumar waliba dumarku ay qaawan yihiin madaxoodu ay cawrad tahay ayaa marka isdhex fadhiya masaajidku waxa imaam ka ah nin openly gay ah nin public u sheegtay inuu qoomuluud yahay ayaa imaam ka ah waxay samaysteen dallado imaamo ah oo markaas leeyihiin waa dallada ay ku midaysan yihiin imaamiyada qoomuluudka waxyaalaha marka aad u tiro badan ayay sameeyeen waxyaalaha kale oo ay marka ay sameeyeen waxaa ka mid ah inay markaas kitaabkii jaamaca ahaa ay sameeyeen kitaab korka kore jildiga orange ka ah laakiin geesaha marka aad ka fiiriso rainbow kale oo marka ay leeyihiin waa kitaab marka ay iibsan karaan oo loogu talagalay maxaa la yiraahdaa qoomuluudka gudaha marka fiirisin kitaabkii jaamaca ahaa caadiga ah weeye arinta marka culimo aad u tiro badan oo caalamka ayaa naqdisay kana hortimaaday in marka la dhax galo maxaa la yiraahdaa diinta islaamka oo qoom luud iyo diinta islaamka isma raaci karaan Qur'ans with rainbow color pages. Is it permissible to obtain? This is an innovation. The Prophet said, "Alayhi whenever you decorate your Quran books or copies, then the destruction will befall upon you." This is not what why Allah revealed the Quran to have pages of the rainbow, and then the LGBT community may mix you up and say, "Oh, this is the LGBT Quran," because it follows our color coding. This is totally prohibited. But can we read in it? If someone gives it to you, it's a Quran. You can read in it, but you should not go and buy it nor manufacture it. marka aad google-ka ku qorto LGBTQ Quran markaad ku qorto ama Quran ku qorto halkaasaba in buugaag kitaabadaas ay ku soo baxayaan arinta marka ay meeshan ka timaaday oo su'aasha ay weyn ay taala ayaa waxay tahay ninka dhalinyarada ayaan dhaweyd mar baan ka hadlay arintiisa way soo laabatay kitaabo ayuu wuxuu yiri waxaan u hadiyay ciyaal dugsiilay Soomaaliya joogay ayaan u hadiyay buu yiri isla kitaabada ninkan u hadiyay ciyaalka ardayda ah oo kitaabada hadda aan ka hadlayay way markii aad fiiriso soo dhaweyso arkaysaa because jildigooda kore oo jildi caan ah way waxaana jeclaan lahaa cid walba muuqaalkan u gaaro oo awood u yeelan karta kitaabada inay soo sawiraan barin geesahoodana markaas sawir laga qaado maadaama jildiga kore ay jildigii kitaabada nooca ay yihiin bal geesuhuna say yihiin iyo gudihiisa rainbow ba hadii ay sidaa tahay mar walba ninkaanu marka waxa dhinac ka soo galaya arrimihii aynu muddo badan ka qaylinay asaguna uu galgalanaya marba darbi uu isku qaadaya waxaan rabaa inaan weydiiyo kitaabadan noocaana oo qaaska 10kii sano la soo dhaafay dunida oo dhan ay ka buuqaysay oo culimo badan iyo dalal badan oo islaam ah laga mamnuucay inaad dalka geysaa ayadoo kitaabada caadiga ah standardka aynu naqaanay
كانوا كلا نوعان وكا كي نوعان وكا إنه نقاني دل كانوا كاستعمال جري أما ذلك عادي إنه نقاني لهلي كرايو حاق وكلفية ميان لو أرن كريم waxaa si xoogaysanay marka tuhunkii laga qabay waxaad aaminsan tahay wax walba kor u qaado maxaa ka dhigaya wax meeshii ay kugu tuumeen wixii lagu haystay kugu sii riixaya what is the point su'aasha sanika walka rabana weydiiyo dadkana maxaa rabana u sheego inay indhuhu furaan iyo inay awood u yeelan karaan bal inay wax raadiyaan oo aysan hal qof oo kaliya aan lagu halaynin diinta culimada hadii diinta lagu halayo waxaan isleeyahay dayac ba dhacay kaligood kuma filna kan nin walba kan askariga ah gabadha qofku wax qori kara qofka hadli kara qof walba markii aad fiiriso marka isla nimanka anu baraha bulshada Twitterka iyo Facebook iyo ayaa lagu iibinaya waxa leeyahay linkiga raaca ka bacdi soo gata xabadiini waa kitaabo marka uu qaasara leeyahay qomaluud hadda ninkan oo kale marka aad fiiriso waa Indonesian oo caan qomaluuda waxay sinayaan in la gato kan waa mid kale asaguna waxa uu ka shaqeynaya diintu culimada kaliya mas'uul kama ah siyaasaddu siyaasiga kaliya mas'uul kama ah difaaca dalka askarta kaliya mas'uul kama ah cid walba waxay qaadan karto inay qaadataan oo idinku boorin lahaa waad aragtaa marka arrinta horta kitaabka quraanka iyo jildiga nooca u eg horta niman kale iyo xaaladda meesha ay ku biyo shubatay waad aragtaa arrinta Omar marka in muuqaalka inta asaga loo diray uu muuqaalka reaction ka soo sameeyay qofka marka ka dul hadlayayna uu asaga magaciisa ku dhawaaqayay iyada laftarkeedu waa arrin kale gooniya marka kitaabada ma asaga diray mise meesha laga iibiyay iyada waa arrin kale aan isla dhageysana marka hore asaga qaybka meesha ka qayb qaatay wiil Omar la dhaho walaalkeena u duceeyay isagana aamin dhaha wuxuu rabaa dadka ku dhagan Allah ka fujiyo gaalada iyo wixii ku dhagan mucaaradka Allah ka fujiyo rabbiga raxmaanka kuwa waxla buxaalaha gaarsiiyo waalidiintaada mata Allah ma xariistayo إن شاء الله بس خلاص تمسس النار سريدا لغو هرينيا inuu iftiimaabo u dhawaanaya saafinimada uu leeyahay daraadii dabayaan la taafsiinin nuurun ala nuur wa natiijadii nuurun ala nuur wa nuur isaaran oo koray oo kobcay nabigu waa nuur quraankuna waa nuur iimaankiina waa nuur ilaahayna waa nuurkii asalka waha subhanahu wa ta'ala wadaadkan hadda nuurkii iftiinka ka hadlaya laba nuur oo isaaran baa dunidu u baahan tahay leh asagana waa gaal lah gaalaysiya hadda asaga nuurkii iftiinka buu yiraahdaa waa gaal ma garanaysaan nuurka iyo iftiin baan hayaa muu yarteen naadeelkay mise umaydan yeerin ku soo dhawaada mugdiga iyo madmadowga miyaa rabteen inaan idin dhaho maxay taa munaafiqnimadu baad ilaahay ka baqdaan oo hal waji yeelataan shalay markaan lahaa nuurkii iftiinkaan hay anigu soo Soomaali inay gurmanayn aniga hadalla kala miyaan ku hadlayay soo Soomaali inay gurmanayn markaan lahaa nuurkii iftiinkaan ayaan si ka cararayay dadkii mugdiga ahaa oo aniga black magic ay u sameeyaan ka cararayay